maxaa ka jiro in HIV/AIDS iyo xanuunada kale ee halista ah lagu kala qaado goobaha caafimaadka ilkaha aniga ayaa ku sharxi doona mowduucan balse marka hore waxaa ka codsanayaa muuqaalkan la wadaagtid saaxiibadaada ilkaha u xiran iyo saaxiibadaada kale si ay ugu faa'iideystaan sidoo kale tan aad akoonkayga follow saartid si aad ula socotid muuqaalada taxana ay xaggan ku baahiyeen haddaba xanuunada faafa aad ay u badan yihiin balse xanuunada faafa ee halista ah waa saddex xanuun xanuunka koowaad HIV/AIDS xanuunka labaad hepatitis B waa cagaarshowga nooca labaad xanuunka saddexaad waxaa loo yaqaanaa hepatitis C waa cagaarshowga nooca saddexaad haddaba saddexdan xanuun wax daawo ah ma lahan waana halis si degdeg ayayna ku fidaan waxayna ku fidaan goobaha caafimaadka oo dhan ha noqoto qaybta ilkaha ha noqoto qaybta dumarka iyo wixii la mid ah haddaba bukaanka cusub ee rabo inuu booqdo dhakhtar ilkaha ah waxaa waajib ku ah inuu sameeyo baaritaanada saddexda ah aniga iska hadlo marka koowaad Dr. CK ahaan bukaan walba oo cusub oo ay yimaado waxaa u sameeyaa baaritaanada saddexda ah sidoo kale taraajooyin dadka qaar way u baahan karaan balse dadka qaar ma kala eexdo dadka